السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا قد حسوستي أنت أنك حسوسته مرحوم موضوعنا أكس مدحوينه علي مهدي محمد كلنكي كوات وحان هرتو أقوان سنة مدحوينها كلي الديمقراطية دا si dimuqraadi ah magaca iyo xilka madaxweynenimo markuu qabtay wadankan si dimuqraadiyad ah u horseeday mustaqbalka iyo future-ka wixii ahaa markaas wanaaga ahaa oo maanta aan ku sugannahay u sabab ah quruxda iyo wanaaga aan ku sugannahay waxaa ka mid ah tusaale waxaan u soo qaadanayaa libaaxa haddii la dhaho macnaha wax been ah haddii lagu bahaahin maaga la dhaho adiga ugu maaragtay boqorsan xoolaha dugaaga ama ugaarsatada haddii la dhaho oo haddana waxaad ogaataa midka geedka korkiisa intuu fuulo lugaha kala rito oo hawada macaan meeshaas ku qaato oo shimbiraha ku soo buuqdo maaragtay guryahooda oo ukuntan aanan ka taabanin inuu yahay shabeelka marka taas waxaan u leeyahay maanta qiimaha aan leenahay adduunyada aan ka leenahay been wax loo madax salaaxayo haddii la iska dhaafo shakhs dawladna la iska dhaafo qof haddii loo fiiriyo qofka Kenyaanka ah qofka Soomaaliga ah qofka Etoobiyaanka ah qofka Soomaaliga ah qofka Jabuutiyaanka ah qofka Soomaaliga marka la soo fiiriyo waxa qiimo badan sharaf badan adduunyada meel walba iyo si walba sharci walba iyo meel walba u furfuran yahay oo uu furfuran yahay waa qofka Soomaaliga ah horumarka qofka Soomaaliga inta awood xuquuqaha uu maanta haysto ninka Kenyaanka ah ma haysto kan Jabuutiyaankana ma haysto kan oo magaciisa ahna ma haysto Etoobiyaanka ah ma haysto marka taariikhda hadhowaan gadaal waxaas ka faahfaahin doonaa taariikhda markaan dib u galo oo ma aragtay odayaashii caaqiliintii Soomaaliyeed dhibka ay u adkeysan waayeen ay la kaceen ay la ma aragtay magaciiseen markay sameeyeen oo ay ku kulmeen shirka Jabuuti علي مهدي محمد الله نحريست كتاب كيسن مديكت الله كسيو لو مغعابي ماشاس يونيون اهان isugu tageen oo man unionki Soomaaliyeed ee meesha isugu tageen waxa hambalyo iyo maartay mas'uuliyad saarid la isugu daray mudane ex madaxweyne marxuum Allah u naxariistay علي مهدي محمد tilaabadii ugu horeysay oo qaaday waxay ahayd sinaanshaha dadka nin shaqeey inaan shaqeynin nin u nacamleynaa inaan u nacamleyneynin nin dawlad hore u nacamleyn jiray dawladda dhigacabka ahayd u nacamleynaa inaan u nacamleyneynin kulli inuu simay wuxuu sameeyay mashruuci ugu horeeyay oo ammaanka iyo ma aragtay nabadgelyada uu ka qabtay waxay ahayd sameyntii ma aragtay ciidamadii ashaamudka dib u soo celi ma aragtay dib isku daygii hay'adihii dhaqaalaha kabay ayadoo weliba ay haysato xaalad adduunyada dhan ay la qeylinayeen gaar ahaan anagana haystay oo arinta ah climate change cimilo gadoonka adduunyada ka dhacay oo roobkii iyo wixii ay wareegeen marna si ma aragtay wuxuu si degdeg ah u sameeyay waxa dalab ah in si degdeg loogu soo gurmado wadamada ma aragtay adduunyada ay ugu soo gurmadaan Soomaaliya oo loo ma aragtay maalgashto wax walba macnaha maalgashi furan
wuxuu isla markii isku taraagareeyey waxbarashada haweenka oo maanta ayaga ay yihiin hay-adaha dhaqaalaha waxa gacanta ku haya qaybta oo maaragtay waxyaabaha dhaqaalaha kabo oo uu ka mid yahay ganacsiga wuxuu isla markii isku dayay oo maamuladii uu dhisay oo wasaaradda caafimaadka macnaha uu u dhisay xaqiijinta caafimaadka ayuu wuxuu u dhisay wasiirka caafimaadka ayuu magacaabay waxaa isla markii isbitaalada iyo qalabkii maaragtay dadkii caraysnaa ay ku burureen soo aruurintii wasaaradihii magacaabitaankoodii samayntii wasaarada oo dimuqraadi ah oo dadka soomaalida oo dhan ay u siman yihiin wuxuu xoojiyey heshiisyadii oo maaragtay oo dibadda ka dhexeeyey soomaaliya iyo waddamo kale xataa waddamo aan safaarada ku lahayn soomaaliya ayaa ka mid ahaa waddamadii soomaaliya usoo gurmaday oo maaragtay ogolaashihiisa ku yimid wuxuu sameeyey waxaa maaragtay ka horeeyey oo uu dib asagoonan ka soo celinin dhinaca caafimaadka waan ka kala boodayaa sababtoo dukumenti ahaan iguma samaysmo xasuusteedan aan ka shaqaysiinayaa isbitaalkii degdega ahaa oo raggii ku kulmay jabuuti ay maaragtay ciidamadii kasoo horjeeday dictatorka siyaad bar kasoo horjeeday waxaa si degdeg ah loogu daaweynaya intii oo uunan maaragtay xamar uunan ka bixin meesha la dhahayo soos sidoo kale macnaha waxay ahayd emergency health care service iyo wax walba caawinaad oo loo baahnaa in lagu helo maaragtay dadka dhiigbaxa inay ku helaan soos oo ahayd college carruurtii ku jirtay waalidiintood ay kala qaateen wuxuu sameeyey isla markii haddana waxaa maaragtay uu sameeyey ka mid ah waxa la dhahay lcgii iyo waxyaabahan ku xasuusanayna waa lcgii iyo frankfurtadii ahayd hal qof keliya badeecada soo dejin kara iyo qof aan laysankaas haysan ama magaciiskaas haysan waxba ma soo dejin kara iyo maaragtay haddaad soo dejisid waa la wareegitaankii dowladda iyo canshuurtii oo extraaga ahayd iyo waxaasoo dhan uu joojiyey oo qof walba free ka dhiga waxaa nasiib u yeelana xataa shidaalkii nag gadaashiina maray oo carabaha ay u gudbiyeen mozambique iyo meelahaas indhahayga nadartu bilceen waxaan ku dhahay duumo ka imaaday bombaaso iyo dekadda oo mozambique iyo meelahaas ka yimid oo shidaal wado oo dekadda kusoo xaroonayo oo dekadda shidaalkii looga qaadanayo faa'iidada la helay oo maaragtay oo uu dadka u madax baneeyey waxaa ka mid ahaa qof walba oo baahan dhulka iyo dadka iyo dalka idinkaa iska leh dekada gal waxaa cuni lahayd iska soo qaada adoo shilin kumitaana dhiibin waa sadaqo sinaanshaha waxaan ka iloobay maaragtay oo sinaanshaha uu sameeyey oo dadkoo dhan ay shaqaale waxaan shaqaynayn wax oo maaragtay shaqawaaye ah jobless ahaa kuwo baagamuundo ahaa oo maaragtay xirfad skilliska haysto degree haysto oo maaragtay dabaqada dhexe ah injineero leh dhaqaatiir leh maaragtay siyaasiyiin leh magaciisi maxaa la dhahay leh farsamo yaqaano maamul leh kulli in maaragtay lala simay
ummadda oo ayaga ay wasaaradihii iyo meelihii ay ayaga buuxiyeen kaalmihii si dimuqraadi ah si heshiis la'aan ah ayuu oggolaaday badeeco walba inay soo gasho oo aanan cidna ugu maaragtay magaciisaynin wuxuu oggolaaday in qof walba waqtigu doono vacation uu qaato ilaa prime minister ilaa iyo qof walba meeshuu doono inuu aadi karo wuxuu sameeyey agreementigii oo wuxuu salaxay diyaaradihii Frankfurt diyaaradaha wadamada adduunyada markaas ayagoo aqoonsan baasaboorkeena in qofka wax shuruud lagu xiran oo maaragtay tigidhka leh uu qaato oo aanan laga rabin wixii la dhahay bixid fiisa inaad safaarad ka dhex raadisid magaciisa diyaaradaha inay fiisaha siiyaan ilaa Ethiopia ilaa Nairobi ilaa meel walba laga baxay howlahaasna waxaa loo xilsaa kaalintaasna waxaa qaadanayay oo maaragtay fursadaas aad uga faa'iidaystay dadkii oo maaragtay gobolada qaarkood ka soo jeeday oo taagnaa maaragtay madaxdoodina ay joogtay ayaa madaxdii waxay maaragtay u dooreen dadkaas inay baxaan haddiiba diyaaradii baasaboorka keliya lagaa rabo oo aadan safaaradda fiisaheeda diyaaradda ay ku saarayso waa maaragtay waa tan hadda intaasoo doctor inta aan ku gaarnay ilaa maxkamadda adduunka ilaa maaragtay Mareykan maaragtay hoggaankiisa inaan ka mid noqono maaragtay meelo badan hoggaamadooda wuxuu sameeyey tiirar adag oo wanaagsanaanta mustaqbalka ah oo maanta aan joognay cidii alla ugu xamdiso alla ugu xamdisay qofkaan ugu xamdinina uma uunan xamdin laakiin waa maaragtay wax xamdin mudan waa heerka aan taaganahay marka loo fiiriyo qofka Soomaaliga ah iyo qofka Etoobiyaanka ah qofka Soomaaliga qofka Kenyaanka ah qofka Soomaaliga qofka Djiboutiyaanka ah qofka Soomaaliga qofka Afrikaanka ah qofka Soomaaliga qofka Asiyaanka ah qofka Soomaaliga qofka Yurubiyaanka ah qofka Soomaaliga qofka maaragtay Mareykanka ah Ameerikaanka ah qofka Soomaaliga qofka Australiyaanka ah marka la isu fiiriyo oo shakhsi la isu fiiriyo maanta shakhsiga xorriyad badan haysto oo aadana xorriyadda u baahnaa 90% wax haysta 100% maba jirto laakiin wax haysta 95% annaga ugu horeyno Soomaalida ugu horeyso gaar ahaan Soomaalida ugu horeyso haddii la dhaho dibaddana Soomaali Canadianka ugu horeeyo oo maanta waddankuu taga iyo magaciisigu taga aanan u baahnayn maaragtay wax dhib aan kala kulmayno goobihii shaqada intii dagaalka sokeeyay uunan dhicin goobaha shaqada wuxuu maaragtay ka bidhaamiyey iftiinno oo goob walba oo shaqo wasiirkii maareeyaashii agaasimayaashii wasiir ku-xigeenno maaragtay wasiir ku-xigeenadii iyo raggii kale wuxuu haddana habeeyey oo maaragtay taytalkooda si fudud oo ku bedelay raggii oo kaadiriinta xisbiga oo hanti wadaagga ahaa iyo kuwii xogayaasha joogtada ahaa isla markaasna ahaa maaragtay xogayaha xisbiga ee maaragtay wasaaradda hebel iyo wakaaladda hebel iyo maaragtay iskaashata hebel dhaqdhaqaaqa oo maaragtay xoogsatada wuxuu gaaray heerka ugu wanaagsanaa oo xorriyad ah oo maaragtay waxaa dhacday badeecada laga qaado xamar ilaa iyo Kenya in la geeyo ilaa South Africa ilaa iyo maaragtay Ethiopia ilaa iyo Djibouti la si dhaafiyo Eritrea oo maaragtay ariga laga qaado inta casab iyo maaragtay musawac ee maaragtay lagu dejinayo أول حولها مركل قاعدة وحيد هدي اللي سوء عليه أو نقوله حماية أما كمبني أو نقادن بدي مركل كمبني أو قادن عيو
kambani markuu qaato waxaa la geynayay kambaniga ayagaa qaadanaya oo maaragtay markii laakiin dad Soomaali ganacsato Soomaali waxooda ayaga inta isku darsadaan ay rabaan inay suuqyada geystaan suuqyada marka laga soo celiyo waxaa dhacday waxaa heshiiska lala sameeyay kamid ah Eritrea sababtoo Eritrea markaas dawladna ma aynan ahayn laakiin qaramada midoobay ayaa dhex joogta xiriirkii badnaa oo uu sameeyay oo wadamada adduunyada dhan oo uu la xiriiray in la soo gurmado in investment wadanka lagu sameesto in maaragtay magaciis waxaan ognahay oo aan shaki ku jirin in dabacdeeyaha iyo kabsasta xataa suuqyo loo helay ganacsatada ay soo doonanayeen wax cuna iyo wax maaragtay qurux u baahanba u soo laaba marka caafimaadka waxa inta aan dagaalka sokeeyo una bilaabin dagaalka sokeeyo waxa sababta u ahaana waxay ahayd dimuqraadiyadda sababtoo ah wuxuu u fududeeyay ciidamadii asaga ka soo horjeestay ayuu wuxuu u fududeeyay xagga lacagaha si ay maaragtay hubkii waaweynaa gacanta ay ugu dhigaan oo ay taariikhdii casharada laga dhigi doono banaanka xuduudaha dimuqraadiga jamhuuriyadda dimuqraadiga banaankeeda laga dhigi doono inay kaalinta ugu horeyso ayaga ay qaataan ku talgalka naqshada iyo qaabka wuxuu ahaa saas marka hubkaas markii isla dimuqraadiyaddii lagula soo laabtay wixii dhacay ma aynan ahayn wax oo hoos u dhigay tirarkii asaaska adkaa ee qofka Soomaaliga sharaftiisa iyo xuquuqihiisa iyo xuriyaadkiisa ahaayeen awal waxaan xasuusanaa Sacuudi Carabiga kali cimro ina aadid hadaartid ama xaj ina aadid hadaartid horta baasaboorka safka loo galayay oo ka bilaabanayay migration ka bilaabanayay wuxuu gaari jiray Bayxaan ilaa Seylaani dad safana arkaysi subaxda anagoo iskool u socono dad la dhahayo waxay u safan yihiin baasaboorka arki jirnay oo basaska aan ku soo agmarayna Seylaani saf ka taagan yahay meeshana waxa waa fiyaad agteeda waaye oo maaragtay meesha laga qaadanayo gurigii oo maaragtay magaciisi haddana meeqa kun oo baasaboor aan haysanaa oo ajnabi iyo maaragtay dalka ah marka taas waxay keentay in uu kor u kaco dhaqaalihii oo maaragtay dadkii oo ahaa middle classka ahaa injineeradii dhaqaatiirtii nersiskii macallimiintii lawyaradii macnaha maxkamadaha dadka shaqeynaya ganacsatadii in dhaqaalahoodii kor uu kaco dhaqaalahooda kor markuu u kacay ay maaragtay banaanka u wada baxeen oo ay maaragtay ilaa iyo 6 organ ee qaramada midoobay ee xubno culculus ay ka noqdeen international organizationada kale ee maaragtay relatedka la ah qaramada midoobay ay ka mid noqdaan independencyga organizationada ka madax banaan qaramada midoobay xiriirkana collectiveka aan la ahayn laakiin si dadban ama maaragtay is aqoonsi xiriirka ula leh waxa uu fasaxay waxaan unionkan sameysmay oo maaragtay asaaskii tiirarkaas ka mid ah gobollada Somaliland Qaatumo Puntland Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed Jubbaland waxaasoo dhan waa tiirarka asaaska adkaa oo dimuqraadiyadda oo uu soo sameeyey oo maaragtay ilaa hal maalin kuma dhismin Ottawa iyo Paris ama London okay macnaha gobolada sameysna wuxuu ka ilaaliyay shaqaalihii wuxuu ka ilaaliyay in aan la haraas gareynin ama buuq aanan la gelin violence lagu sameeyo haddii xirfadda shaqo aad leedahay ama degree aad haysatid ama maaragtay xirfadda shaqo aad haysatid
ina wax ku dhibaayo oo macnaha theory ahaan wax hadaa u baratay ama aad practice u baratay labadaba ilaa maanta cid ku hortaagan mala xafiiska rabtidaad Soomaaliya ka dhex furan kartaa goobtii shaqo rabtidaad ka samaysan kartaa waxaas waa tiirarka asaaskii tiirarka adkaa oo uu soo sameeyay ilaahay garabkiisa ilaahay gacanta midig ka siiyay kitaabkiisa marka xorriyadan hadda oo maarta goobaha shaqada ah oo Soomaaliya ay haystaan waxa sabab u ahaa asaaskaas adag oo uu soo sameeyay waxa furmi shaqooyin badan oo cusub oo aan wada ogna mid civil mid maartay arm qofka ilaahay uu qalqay nooca dagaalka iyo maartay hubka shaqooyinkiisi oo ilaa Allah uu qalqay uu qabsadaa oo wax xujo ah ku hortaagan ma ay jirto tan ah civilka sidoo kale wax ka hortaagan ma ay jirto wuxuu bayaaniyay saxiixii madaxweynenimo ayuu qof walba Soomaali gacanta ka saaray ilaa dokumenti qof walba uu sameyn karo asaaskiisa ahayd wax aragtin sameeysta ah waxaan u baahanahay hadda time hadda waxaan u baahanahay si taariikhda dimuqraadiyadda kaalinta ugu muhiimsan aan uga galno oo maaragtay xeerarka dimuqraadiyadda buugaag badan oo laga qoray oo maaragtay hadda bilowgii 91kii laga soo bilaabay haddii laga bixiyo meesha qabyaalad iyo waad iga hormartay mana kaayeela hormaritaankii darteedan kugu xaqirayaa haddii laga baxo taariikhda dimuqraadiyadda hadda la soo fiiri Aristotle ma ahan geed baxay Plato ma ahan geed baxay George Washington ma ahan geed baxay Lenin ma ahan geed baxay laakiin taariikhdu waa la hormariyay dadkiya maartay xaqiraadii laga joojiyay asagoo nool haddii aan hadda sidaan aan u hadlaayo aan u hadli lahaa waxa suurtagal ah in la ii arki lahaa waxa jeebkiisu rabaa inuu galo maya jeebkiisa inaan galo ma rabo أنا أوياشي بنادر ودنكم إيه دلنا بنادر تيهورا براو كسو بلاو إلا وحكو جيسا جوهر أبوياشي كم دلنا لكن أنا جو حبا أكو برتي ودكسو هاو سدح السراء إلا إيو ما أرتي قرمت إلا إيو دقالدان إيو وحان وان دح جوغي waxaan kulligeen wada ognahay maartay shaqaalihii sameysmay 91kii inay laf dhabar u yihiin xaaladda hadda aan taagana ma jiro gobol ama magaciisi wax sheegay oo dhahay ma aragtay waa isku filanahay oo la dhahay maya macaawinada muqdisho markay timid ilaa ceel bardaa la gaarsiinay ilaa waxa la gaarsiinay dhinacan kale waxa la gaarsiinay ilaa iyo waqooyi dhinacan ilaa iyo magaciisa la gaarsiinay dadkana xuduudaha laga xiray iyo hal lagu sameeyo iyo ma aragtay waxyaabaha oo xuquuqul insaanka muhiimadda u ah ama qarannimada muhiimadda u ah xorriyadda dhaqdhaqaaqa qofka waxa uu ka dhigay 100% maanta aan ilaa maanta aan haysano markii shaqaalahaas oo guuleystay oo soo bilowday waqtigaas waa ku guuleystay mustaqbalkana ku guuleysan doona haddii wadada dimuqraadiyadda oo uu tiirarka soo aasaasay Allah u naxariisto abaalna Allah ka siiyo علي مهدي محمد كتاب كيسن مديكت الله كثير
kulligeen waxaan shaki ku jirin inaan u wada taagannahay inaan shaqaysano oo aan shaqeyno oo aan u shaqeyno ciidaheena aan u shaqeyno ciidaheena markaan leeyahay familkeena naagtaada odaygaaga ilmahaaga aabbaha habaryarta walaasha iyo dad inaan wada shaqeynaa kulligeen aan wada taagannahay marka waxaan u rajaynayaa dimuqraadiyadda in aanan laga maaragtay fiirinin dhinaca maaragtay waxaan la dhahayo dhinaca inaan laga fiirinin ama lees garab dhigin wadamada shuuciga ah ama colonialistka ah ama qabiil dadka madaxa uga joogsadaano oo ha ku asluubeeyaano sida hadda gobolada qaarkood ka jirto ama ha ugu marmarsiyodaano waxyaabaha la dhahayo argagixisada oo maaragtay dimuqraadiyaddana ka mid ah qofka furfurnaanta iyo maaragtay iska dhicinta wixii markaas dhib uu arkaya sharci ahaan iska dhicin gacan ahaan iska dhicin dimuqraadiyadda ay ku jirtaa islaamkana way ku jirtaa gurigaaga iyo gurigaaga iyo ubadkaaga reerkaaga wuxuu kugu yimaado inaad iska dhiciso oo si sharci dara ay kugu yimaado oo nidaamka bulshada markaas ay ku dhaqanto ka duwan wadamada kale waxa waa wixii kale dhan madaxa lagu dhufanayaa waxaa kugu samayn kara argagixin waxaa kugu samayn kara qabiilkaas xukunka haysto ama maaragtay ciidankaas xukunka haysto waxaa ku argagixin adiga haddaa fartaagtid waxaa waaye waaba tuugasho dimuqraadiyadda ma aha saas weliba dimuqraadiyadda inkastoo meelaha kale ee adduunyada wadamadii dimuqraadiga ahaa oo nala midka ahaa waxaad soo qaadanaysaa maraykankaad soo qaadanaysaa waxaad soo qaadanaysaa wadamo badan oo maaragtay dimuqraadi ahaa annagaa ka sidana dimuqraadiyadda sababtoo ah ayaga waxaa mixid ku noqday waxaa ku dhex qasmay sovietkii dadkii ruushka ahaabo iyo wadamada aliyeedka warso ayaga naftirkooda nidaamkaas dhibsaday oo kasoo yaacay ayaa mar kale dib waxay uga istaareen ilaa maraykanka iyo ilaa meel walba oo ay ugu dambayso ilaa haddeertaan maaragtay washington DC madaxweynihii oo United States uunan sidii madaxweynayaashii ka horeeyey uunan ahaan karin sababtoo ah ummadaas dhaqankooda uu yahay iskarbaashka ayaa meesha ku soo bateen oo imaadeen laakiin Soomaaliya nasiib daradaas lama ee kulmin waa maaragtay magaciisi asaaskaasna waxaa lahaa wax lagu faani karana waaye horumarna ah oo lagu gaari karo in hoggaanka dimuqraadiyadda aan noqono oo aan sameyno qurxinno asluubayno waxqabadkii waalidiinteen dadkeennii ay soo sameeyeen aan ka dhigno dimuqraadiyadda saxda ah oo aan gaarnay dhinaca carruurta iyo ubadka xaaska waa sheegay oo maaragtay horumarinta haweenka waa tan hadda ganacsiga ayaga ay hoggaanka ay u yihiin sida kale carruurta inkastoo ay jirtay maaragtay tabardarro ee imaado climate change uu keenay haddana dagaal la galay dagaalkaas xataa wuu tirtiri waayey wuu baabi'in waayey dagaalkaas iyo dadka kale ee cadaawadda ah u qaba horumarka noo diidan sida Soomaalida ay isugu diidan tahay magacaas waxaa noo hoggaamiyey oo horseed noogu ahaa heerka aan joogno oo aan ku faraxsannahay alla ugu xamdinayno shaad bar markuu baxay cali mahdi maxamed Soomaalida baqalnimadaas oo qaarkood ku jirta kaliya maaha adduunyada waa nala qabeen oo waa kuwii intay imaadeen tusaale ahaan idaacadaha oo maaragtay adduunyada aad ka maqlayseen dad survey sameynaya oo dhahay Soomaalida xagga waxbarashada kor bay u kaceen laakiin waxbarashadaas waa mid dhib ku ah mustaqbalka adduunka sababtoo magaceeda dafaayaan camal waa meeshaas waxaan maaragtay aan hambaliga ka leeyahay markii la dhaho aan wadanahay Soomaali aan wadanahay sunna aan nahay oo aan nahay maaragtay labada sunni aan nahay sunniga oo Xijaas iyo sunniga oo Najda sunniga Xijaas
xagga diintii iyo magaciisigii iyo quraankii iyo maaragtay tasbiixdii iyo magaciisigii hawshaas ay ku wadeen oo aanan maaragtay ama fasaad aan loola tegin ama waxba aanan maaragtay dhibaal ah aan loo geysanin asaaskaas ama hawshaas waxa sameeyey oo maaragtay ilaa maanta oo in la burburiyo oo sida sacuudiga isaga soo horjeedaan sacuudiga shaki noogama jiro in dadkii kabcada joogay in xilkii iyo wixii oo dhan laga tirsaday oo boqortooyadii ama dadkaas najda ay qabsadeen maka iyo madiina iyo maamulkeeda wax fiican bay sameeyeen oo xagga oo qurxinta dhulka ah ama maaragtay waxyaabaha oo architecture-ka dadka qaar ay u yaqaanaan ama qaabka si guud oo si adduunyada ahaan iyo si gaar ahaaneedba markaan uga hadalno dhinaca dalxiiska ama maaragtay dhinaca cibaadadaba marka ishaysashadaas najda weerarkeedii waa nagu soo socday laakiin waxba nooma dhibaynin oo xaggii waxbarashada ayagoo magacooda lala xoqanayo ah maaragtay aslaax iyo maaragtay culmo badan oo dariiqada buugaag ma aqaan aniga qofka ku qoran aniga dariiqa waxaan u kasaayaa macnaha qofka markuu dhaho aniga shaaficiyaan imaam shaaficiyaan maaragtay madhabtaasaan ahay markuu dhaho sunniyaan ah markuu dhaho imaam shaaficiyaan ah uu dhaho imaam shaafici ka bacdi dariiqo waxa la dhahayaa jiray axmediye iyo saalixiye iyo qaadariye iyo maaragtay aweysiye iyo maxaa lahay siliciya adiga markii saas la dhaho qofku wuxuu lahaan jiray sheekh culummadan oo maaragtay waxbarashada xagga waxbarashada xoogaa gacanta ku qabata adduunyadana xoogaa ee jalaska ka noqotay ma kasaa ana dariiqadooda laakiin waxaan kasaa bugaagga ay akhristaan raggi qore inuu yahay dariiqada ay haystaan sababto buuggaas waxa ku qoran ayay haystaan kuwa oo sunna kuwa kale oo maka oo xijaasiga ah oo quraanka meeshuu kasoo degay dariiqada ah waxaa macnaha kuwan waxaa dariiqada oo waxay haystaan dariiqa oo ah odayaasha qorayaasha oo ah maaragtay najda riyaad iyo soonahaas laakiin kuwa sunna wal jamaaca waxay haysteen silsilad sunna wal jamaaca oo waxaan ku jeedaa oo ah dariiqooyinka oo xijaasiga ah waxay haysteen silsilad la dhahayo qofka shiikh buu lahaa shiikaas dariiqa ahayd dariiqu uu ku abtirsanayay oo qaadiriye ama axmediye ama magaciisi silsiladaas maaragtay ninka shiikiisa waxaa ahaa macalinkiisa dugsiga qur-aanka macalinkiisa dugsiga qur-aanka shuruudda laga ama maaragtay masaajidka kitaabka u aqriyay qadhiibka iyo dad saas camal ah ayagana waxay haysteen silsilad oo ah ninka wax baray kuu sheegayeen ama ayadoo qoraal ana way haysteen ayadoo afkaana waa kuu sheegay ana shiiqigan ka maqlay oo hebel ah wuxuu ka maqlay shiiqiisa xadiiskaas wuxuu ka maqlay shiiqiisa wuxuu ka maqlay dariiqada madaxii oo dariiqaday gelaysay madax dariiqada markay gashi ka bacday waxaa bilaabanaysa marka waddadii ay soo martay oo ilaa maka ku xiriirayso oo saakin minal maka ama maaragtay minal hebel ah kadib haddana waxay usii gudbaysay silsiladii oo ahaa maaragtay raliillahu canhu ama qaala allahu tacaala marka waxbarashadiina kor bay u socotay oo waa tan maanta maaragtay waxaan leenahay bayloodyo waxaan leenahay waddanka ha ka maagaana hadday rabaan dimuqraadiyadda ha u ahaato waxaan kusoo gabagabeynayaa telefona igu dhacaayo waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaan u rajaynayaa dhammaan waxaan kusoo gabagabeynayaa dadka Soomaaliyeed nabadgelyo iyo farxad dhammaantood sidoo kale waxaan u rajaynayaa kitaabkiisa midigta Allah inuu ka siiyo madaxweyne daacad ah xorriyadda aadanaha ama maaragtay aanan caburinin bulshada aasaaskiisii uu ku imaaday wax madaxweyne oo soo maray maanta waddankan aasaaskiisii uu ku imaaday waxa mucaarad iyo maaragtay ama mucaarad afka ah ama magaciisa ah dimuqraadiyaddii ugu horeysay dimuqraadiyaddiisa waxaa ka mid ah xamar waxaa ka dhex samaysmaanaa xisbi siyaasadeed oo aanan lala hadlaynin intay xaruntiisa ahayd
dugsiga hoose dhexe yaasin cismaan intuu ku yaala daljirka dahsoon ku dhegan yahay madaxtooyada dhinacaana ka jirtaa guriga cali mahdina dhinacaana ka jiraa ya maaragtay saldhigga yaa kala u dhow ha shabeelle magaalada dhexdeeda ku yaala xisbiga oo elman asna allah u naxariisto kitaabkiisana midigta allah ka siiyo xagga dimuqraadiyadda oo mucaaradnimo dowladda lala dhilgareeyo oo aan iyadoo maaragtay dagaal looga hor imaanaynin mucaarad lagu noqdo wasaaradaha iyo maaragtay wakaaladaha iyo qaab dhismoodkooda wax laga sheegi karo xisbigaas magaciisa wuxuu ahaa SSYL oo dhalinyarada ay wateen oo maaragtay hoggaanna uu ahaa elman alamagan marka sidoo mar labaad iyo mar saddexaad labada nin ee xasuusta aadka ah u leh oo taariikhda ku jirto oo taariikhdaas inaan dhisno oo dimuqraadiyadda iyo mustaqbalkeena iyo kan hadda la joogaba aan ku beesgarayno nagala rabo waxaa waaye labadoodaba kitaabkooda midigta allah ka siiyo cali mahdi maxamed iyo elman waa idin salaamayaa waxaan kusoo gabagabinayaa mar kale wax walba oo qalqan alle ayaa qalqay meesha uu ka qalqayna waa loo noqonayo ilaahayow si khayr qabta noogu celi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun mac salaama